Bismillahi Rahmani Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa cashirkeeni sideedaad ee buuggeena beginner buugga ama buugga bilowga. How to use sida loo isticmaalo WH questions. WH questions waxaa la isku yiraahdaa waa 6 baa la isku yiraahdaa. How to use sida loo isticmaalo ama loo adeegsado WH questions su'aalaha ka bilaabmaya WH. What, who, which, when, where, why. Intaas baa la isku yiraahdaa WH questions. What waxaa loo isticmaalaa asks about marka la isweydiinayo something shay marka la isweydiinayo ama wax. What ayaa la adeegsanaya ama la isticmaalaya. Who asks about marka la isweydiinayo ama lagu weydiinayo a person qof ama shakhsi. Who waxaa loo adeegsadaa ama loo isticmaalaa asks about a person qof ayaa loo isticmaalaa ama ay ka hadashaa. Which asks about things and animals waxay ka hadashaa ama loo isticmaalaa marka la isweydiinayo xayawaan ama ashyaa. Which asks about marka la isweydiinayo wax ku saabsan things and animals xayawaanka iyo shayada. When asks about marka la isweydiinayo time waqtiga. When waxaa loo isticmaalaa asks about marka la isweydiinayo time waqtiga. Where asks about marka la isweydiinayo a place goob ama meel. Where waxaa loo isticmaalaa asks about marka la isweydiinayo a place meel ama goob. Why asks about marka la isweydiinayo a reason sabab. Why waxaa loo isticmaalaa ama loo adeegsadaa asks about marka la isweydiinayo a reason sabab. Okay, waxaan ku bilaabaynaa what. How to use sida loo isticmaalo what. What waxaa loo isticmaalaa asks about something shay marka la isweydiinayo ama wax. Tusaale, what is it? Waa maxay? What is it? Waa maxay waxani? It's a watch. Waa saacad. What is it? Waa maxay waxani? It's a marker. Waa qalin koobi. Macnaha qalinka sabuurada lagu qoro ayaa loo yaqaanaa marker. What are they? Kuwani waa maxay? They are watches. Waa saacado. What are they? Kuwani waa maxay? They are markers. Waa qalin koobiyaal ama qalinkii sabuurada weeyaan. What is this? Kani waa maxay? This is a book. Kani waa book. What is that? Kaasi waa maxay? That's a pen. Waa qalin. What are these? Kuwani waa maxay? These are books. Kuwani waa buugaag. Okay, waxaan ku xiisinaynaa who oo midda labaada. Waxaa loo isticmaalaa asks about a person marka lagu weydiinayo qof ama shakhsi. Who is your teacher? Macalinkaagu waa kuma? Macnaha magaciisa sheegaysaa. Who is your father? Waa kuma aabbaha? Aabbaha magaciisa ayaad sheegaysaa. Who told you? Adiga yaa kuu sheegay this history sheekadan. Qof baa kuu sheegay yaa kuu sheegay. Who is your friend? Waa kuma saaxiibka? Who is the vice president? Waa kuma madaxweyne ku-xigeenka of Admas University, jaamacadda Admas. Admas waa jaamacadda Hargeysa ku taala. Who is the vice president? Madaxweyne ku-xigeenka of Admas University, jaamacadda Admas. Madaxweyne ku-xigeenkiisu waa kuma? Magac buu leeyahay. Hello, how are you today? Today, let's look at WH questions. WH questions. They include who, what, when, which, where, how, why. Let's look at who. Who is used to ask about people. Who is used to ask about people.
Examples. Who is he? Who is he? He's my teacher. He's my teacher. Other examples. Who is she? Who did you come with? Who are you? Who is calling you? Who wants some food? Next we look at what. What? What is used to ask about things. What is used to ask about things. Examples. What is that? What is that? It's a pencil. It's a pencil. Other examples include, what is the time? What are you doing? What is your name? What does your friend do? What time do you go home?